beelaha ku aftirsada qowmiyadda jareerweynaha ayaa kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. kulankaasi ayaa waxa ay uga hadlayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen gobolka Banaadir oo la duudsiyay. waxa ayna sheegeen matalaadii ay ku lahaayeen iyo xaqii beelaha jareerweyne guud ahaan dalka Soomaaliya in la inkiray. waxa ayna sheegeen ballanqaadkii uu la galay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beelaha jareerweyne in uu ka baxay ballanqaadkii arrimihii ay islaam meeligteenba mudana madaxweyne Farmaajo afkaaga waxa aad ku hadlaysid iyo ficilkaaga ay iswaafaqeen afka waxa aad ka sheegto iyo ficilka hay iswaafaqeen haddii dib lagaga shaqeynayo waxa la qabanayo adigu aysan ka soo bixin jawaabteeda bixi oo raali galeen ka bixi oo apologies ka bixi wixii dhacay iyo dadka lagu sameeyba annaga taas aadaan uga xunnahay runtii waa ka xunnahay waxa ka dhacay oo ku dhaqaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir aadaan uga xunnahay waxaana leenahay ra'iisul wasaaraha haddii arrinkaas wasaga waxa uu ka og yahayna dhaqsaha uga soo jawaabo hadduu madaxweynaha wax ka og yahayna hada safar uu ku maqan yahay dhaqsaha looga soo jawaabo haddii aan jawaabtaas la helin dadkani way tashanayaan insha Allah waana dad tashada caalamka meesha ka joogaana way is wada gaarsiiyeen jawaabna waa laga arki doonaa insha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo كي لو ورمي ولا لو قاليو ماي ولا سي سومالي دولمن مسلمك دولمن لما وقفوا اسهايستو ولا هاني اوركو هاسك لبهي لي والمصلحه نكي مصلحه الله كي ويل marka magaca Soomaaliyeed korha loo qaado oo jireed korha loo qaado madaxweynaha hawiye iyo daarooda qaata ra'iisul wasaaraha dira qaadata gudoomiyaha baarlamaanka digli mirifla qaadata annaga gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad baarlamaanka leen maalintii ka soko wax noo soo qaaday ama noo sheegayaba malaha waxaad moodaa marka dalka in laga takoorayo mid takoorna oo ka jira dalkan marka waxaan soo jeedin lahayn madaxweynaha asaga banaanka iyo meel walba hoos ka dhameeyay leeyahay annaga inuu noo soo dhameeyo dal aan u guurno maxaa jira qaranka Soomaaliyeed ka mid manihi waxba kuma lihin maamul kasto soo baxo dadka waxay yiraahdaan gaalba gaal iyo si daran macnaha waxa keenay waxaas qof kasto mas'uul Soomaali noqdo marmarka qaarkeed waxa isweydiinayna ma islaamnimada ma yaa ku yar dad aan macnaha qarbi oo meel kale ka socdamiya dadka madaxda leh oo idin noqonay dad Soomaali miya tardud bayna garinaysaa waxa waaye walaalahayna Soomaali waxa uu sheegaynaa gobolka Banaadir markii la yiraahdo wali yaqaana Banaadiri waa jareer dadka oo hadda Banaadiri loo yaqaan dadkii ku soo dhabeey soo dajiyay ku soo degay jareer waa marka waxaan leeyahay soo gabagabeeyna Soomaali weynay halaga waanto qaabdarada Soomaali maamulkeeda ka jiro jareer waxa waaye Ilaahay abuuray Afrika waaye dadka waddanka Afrika waaye hadda kaliyeeda oo matali kartaba waddanka magaciisa carada nooceeda waa jareer maalin kasta waa liyaab le yalla arage may liyaabna qowmiyadda jareerweyne bantuutu manka gobol fadhiida caasimada Muqdisho kumaankum ka fadhiida degmad kasta la argoobo kumaankum ka fadhiida iyo degmooyinkii gudoomiyaal magacaabay leh gudoomiyaalkii degmooyinkii leh magacaabay ilaa ay hadda jareerow sajarta dhan arhib malasaas daraadii iyo golaha dhaqanka jareerweyne shirciiska kooy taas abasho ku erna beelaha jareerweyne ayaa waxay inta badan ka cawdaan madaxda soo marta dalka Soomaaliya iyagoona sheegay inaynan siinin xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deeq Alfa Juba Shabeelle News magaalada Jowhar.